Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso. Kusoo dhawaaw sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii labaad. qaybta koowaad sheekada waxay inoo joogtay waxuu mid walbaba rumaysan yahay inuusan koonkaba ku noolayn ruux uga aqoon badan suugaanta Soomaaliyeed wax kalaba yeelkeede. qaybta labaad sheekada waxay ku bilaabmaysaa dadka kale oo baabuurka saaran waxay u badan yihiin rag dhexaad ah, guud ahaan waxay isku dhafan yihiin rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel. reer magaalka baabuurka la socdaa way yar yihiin, dhowr kursi ayaana ka bannaan baabuurka, waxaase la malaynayaa in jidka dad laga sii helayo. reer magaalka baabuurka la socda waxaa ka mid ah wiil 20 jir ah, muuqaalkiisuna ka duwan yahay inta kale, wuxuuna labisan yahay sarwaal iyo shaar tulmadooda looga dayday habka cusub ee dhalinyarada reer galbeedka, waxaana ku yaalo tima aan weli maqasta la barin. wiilka waxaa magaciisa la yiraahdaa Dhaan Raac, waana inaan meel weyn ka gaaray ku dayashada xaragada reer galbeedka. goor casar fooda lala galay ayuu baabuurkii ka soo dhaqaaqay magaalada Jowhar. waa maalin ay hawadu aad u wanaagsan tahay. shufeerka baabuurka wado waa nin waayeel ah, waxaana caado u ah in markastoo baabuurka dhaqaaqayo oo dadka saaran ku yiraahdo faataxada akhriya. dadka odayaal u badnaa daraaddeed maalintaas waxaa faataxada la akhriyay intuusan shufeerku hadlin. faataxada wadajirka loo akhristay kama uusan qayb qaadan Dhaan Raac, wuxuuna ku hoolanaa uu ku shallaysanayay muraayadda baabuurka. yar kadib markii sabada Jowhar laga baxay ayaa la galay beero aad u baxal wanaagsan oo jidka labada dhinac kala xiriira. waxaa lagu jiraa sanad barwaaqo ah oo ay bar iyo beerba mahadiyeen. galley, masago, sisin iyo khayraad kale ayaa beeraha ka dhisaalan. dadkii baabuurka saarnaa badidood dariishadaha ayay madaxa ka wada riteen ayagoo il iyo laab kulansan ku daawanaya beeraha. waa suge oo fasalkaas beertiisii xumayd ayaa aad ugu dheegagay beerihii, wuxuuna intuu isha la raacay galleydii iyo masagadii qalbiga ugu haysay. beer nimaan bowd u dhigan weyn, bahal celi kara, biyo ugu di'in, dhow barwaaqaa, badar ugu bixin, bakaar lagu shubo, baahi weligii waa u bilan yahay. markii beerihii laga baxay oo cabaar la socday ayaa shufeerkii qaboojiyey socodkii baabuurka si isdabajoog ahna u yeersho hoonka. dadkii oo dhan ayay dheelo ku abuurtay, qof waliba wuxuu is yidhi bal hubso waxa baabuurka hakiyey. waxay arkeen jidkii oo ay lo iyo geel fara badan ku gudban yihiin. waxaa la soo galay meel bulsho xoola dhaqato ah ayna ka degtay. dhulku waa doog iyo biyo dhex yaal, midabada indhaha jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin oo ilaahay dalsankaas ku beeray. laamo cargeegiyey oo caleemo ku gaafan tahay, ubaxna guudka ku sita ayuu geed waliba la liicayaa. ragga iyo dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan waxay isku maaweelinayaan lagdan iyo ciyaaro hidde. qaarkoodna meelo kala fogfog ayay koox uga sheekaysanayaan. warsame ayaa markuu arkay geelii oo iskugu jira ermaan iyo horweyn, aaran iyo galoof iscelin waayey, markaasuu ku dhuftay hees geela isagoo ku luuqaynayana oo yidhi: geel nimaan dhaqan, goodir xalay dhalay, gaawuhu culan, gaarka kala gelin, naaso godol qaba, gaagaxnoo helin, gurdan guud maqal, gadoonka la dhihin, gaatan ula socon, geed qaba u tagin, waa gob yaa yidhi. markuu warsame heestii dhammeeyey ayaa dadkii baabuurka saarnaa dhammaantood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo. warsame ayay la xumaatay inuu isla heestii ku soo celiyo mar labaad, maxaa yeelay waa nin korka ka haya suugaan fara badan. isla markiiba wuxuu dadkii u dooray weydad ka mid ah gabaygii Cumar Istiiliya oo ahaa: intaas waxaa inoogu dhammaaday qaybtii labaad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood.